Assalaamu calaykum daawade fadlan haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin channelka inaad saartid subscribe sidoo kale inaad furatid gambaleelka haddii aad horey noola joogtayna kusoo dhawow gacmo furan beri waxaa jiri jiray gabadhan yar oo ahayd gabadh aad iyo aad u qurux badan waxa ay la noolayd hooyadeed iyo aabaheed waxay aad iyo aad u xiisin jirtay amaba ay jeclayd inay la ciyaarto shimbiraha aabaheed waxay saaxiib ahaayeen boqorkii markaasi magaalada ka talin jiray aabaheed waxa uu u ballan qaaday boqorkaasi inuu ku dari doono gabadhiisa wiilka uu boqorku dhalay balse nasiib xumo waa uu dhintay aabaheed oo ma ahayn mid markaasi arooskaasi nasiib u yeeshay inuu joogo hooyadeed ayaa u sheegtay gabadhan yar oo lagu magacaabi jiray Canab waxayna ku tiri waqtigii lagu guurin lahaa ayaa gaadhay boqorka ayaana kuu wacaya si uu kuugu daro wiilkiisa hooyadeed waa ay la dardaarmaysay wadaduna waxay ahayd mid aad iyo aad u fog waxayna raacisay si ay ugu weheliyeesho shaqaalihii markaasi ka shaqaynaysay gurigooda waxayna u soo dhaqaaqeen dhankaasi wadadii aadaysay boqortooyada Canab ayaa harraatay intay wadada socdeen waxayna ku tiri shaqaaladeedii biyo ayaan rabaa balse shaqaaladii waxa ay iska dhigtay mid markaasi faraska ka soo dhacday oo uu nabar soo gaadhay waxayna ku tiri waan ka xumahay nabar ayaa i soo gaadhay biyana kuma siin karo Canab waxay ahayd gabadh aad iyo aad u naxariis badan waxayna ku tiri dhib ma laha aniga ayaa faraska ka soo deganaya isla markaasna webiga ka cabaya biyaha waxayna Canab ka soo degtay faraskii iyada oo markaasi ku foorarsatay webigii si ay uga cabto biyaha balse shaqaaladii ayaa ku dhex riday biyihii oo Canab waxay ku dhex dhacday webigii iyada oo markaasi aad u qayliyeysa waxayna tiri dabaal ma aqaano i badbaadi maxaad iigu ridaysaa balse shaqaaladii waxay u sheegtay in ay iyadu u tagi doonto boqorka Canabna ay halkaas ku dhiman doonto iyada oo markaasi iska dhigaysa Canab waxayna halkaasi kula soo baxday shaqaaladii dharkii ay xidhan lahayd Canab markay aado qasriga waxayna soo qaadatay faraskii Canab waxa ay ku dhex jirtay biyaha iyada oo markaasi suuxsan waxaana waday daadka isaga oo webigu geeyey geeska kale ee webiga waxaa halkaasi kula kulmay niman kalluumaysato ah waxayna kasoo dhex saareen biyihii iyadu waxay ahayd mid markaasi aan xasuusteedii tagtay oo aan waxba aanan xasuusanin waxa ay weydiiyeen Canab nimankii xagga ay ka timiday balse iyadu xasuusta ayaa ka tagtay oo waxaasi ma ayna ahayn mid garanaysa waxaa halkaasi soo martay shaqaaladii oo markaasi yaabtay markii ay aragtay Canab oo nool balse waxa ay ku tiri nimankii naagtani waa shaqaaladayda aniguna waxaan ahay gabadha uu guursanayo boqorka wiilkiisu oo aniga ayay iga soo luntay iyadoo markaasi ku soo dhacday biyaha waxayna soo kaxaysay Canab waxayna u yimaadeen boqorkii waa uu soo dhaweeyey markii uu warwaraystayna waxay ahayd su'aalaha la weydiiya mid ka jawaabta oo boqorkii kama uuna shakayin naagtii shaqaalaha ahayd ee markaasi iska dhigaysay Canab waxba kama aysan xasuusan nolosheedii hore oo waxa ay la saaxiibtay wiilkan yar oo ku noolaa guriga boqorka sidoo kale waxay aad iyo aad u xiisayn jirtay la ciyaaridda shimbiraha iyada oo markaasi u qaadi jirtay hees waxayna odhan jirtay hadallo aad iyo aad u xigmad badan waxayna ahayd gabadh markaasi aad iyo aad ay dadku u jeclaadeen sidoo kale waxa ay dadku ka heli jireen qaabka ay u heesayso iyo erayada ay ku heesayso oo waxaa jeclaaday dadkii markaasi ku noolaa magaalada boqorka ayaa sidoo kale isagu korka kala socon jiray isagoo daaqadda soo istaagi jiray waxa uuna halkaasi ka dhagaysan jiray heesta macaanay qaadayso boqorku waa uu ka shakiyey gabadhan maadaama uu hadda ka hor saaxiibkii uga sheekeeyey in ay gabadhiisu sida loo heeso taqaano waxa uuna go'aan ku gaadhay sidii uu u kala saari lahaa labada gabdhood isagoo markaasi wiilkii yaraa u dhiibay ukun markaasi dahaba wuxuuna ku yidhi ukumaha kale kusoo dhex rid waxa uu yeedhay gabadhii iska dhigaysay Canab waxa uuna ku yidhi maanta waxaan jeclaystay inaan cuno ukun oo markaasi ii samaysid waxa ay taagtay indhaha waxa ayna tiri shaqaaladayda ayaan u dirayaa si ay kuugu samayso ukun waxa uu ku yidhi waa ay maqan tahay oo waxay la soo ciyaaraysaa shimbiraha waxaanan rabaa inaad adigu ii samaysid ukunta waxa ay tiri waayahay waan kuu samaynayaa ukunta waxa ay timiday xeradii markaasi ukumuhu yaaleen waxayna halkaasi ku aragtay ukun dahaba oo ka duwan ukumaha kale shaqaaladii iska dhigaysay Canab
waa ay qarsatay ukuntii, balse halkaasi waxaa ka arkay wiilkii yaraa. Sidoo kale waxa uu u soo dhiibay boqorkii maalinkii labaad ukun kale oo dahaba, isagoo canab u soo diray. Wuxuuna ku yidhi, waxaan rabaa inaad ukun ii samaysid. Balse canab markii ay aragtay ukuntan dahabka ah, waxay toos ugu keentay boqorkii, iyadoo u sheegtay inay ka dhexeshay ukumihii uu u diray boqorku. boqorku aad iyo aad ayuu uga yaabay gabadha yar daacadnimadeeda. Waxauna u yeedhay wiilkii yaraa, isagoo markaasi ku yidhi, waa inaad faraska qaadataa, isla markaasna aad u yeedhaa canab hooyadeed. Waxauna u yeedhay shaqaaladii iyo canab. Waxauna ku yidhi gabadhii shaqaalada ahayd ee iska dhigaysay markaasi canab, waxaan rabaa, uu hadda ka hor aabbahaa ii sheegay inaad taqaanid sida loo heeso, waxaana rabaa inaad ii heestid. Balse ma ayna garanaynin gabadhan shaqaalada ee markaasi iska dhigaysa canab sida loo heeso, oo waxa ay tidhi, anigu ma aqaano hees, oo iyadoo markaasi garan weydayba sida loo heeso. Waxauna ku yidhi, shaqaaladaadu si fiican ayay u heesi taqaanaa, adiga maxaa kuu diiday inaad heesta barato? Waxa ay tidhi, maya ma aqaano, iyadoo markaasi hadalkiiba ka lumay. Balse boqorkii waxa uu ku yidhi, waan ogaaday beentaadii, ayuu ku yidhi, beentuna waa ay raad gaaban tahay. Waxaanan ogaaday inaadan ahayn adigu gabadhii aan ku dari lahaa wiilkayga. Halkaasna waxaa yimiday canab hooyadeed. Balse markii ay aragtay shaqaaladii canab hooyadeed, aad iyo aad ayuu madaxu u wareeray, oo waa ay yaabtay. Waxa uuna ku yidhi, maxaa kugu kalifay in aad samaysid arrinkan, oo gabadhii wiilkaygu guursanayay aad markaasi iska soo dhigtid? Waxa ay tidhi shaqaaladii, waan khaldamay, waxaanan rabaa inaad iska cafisiin. Balse boqorkii waa uu diiday. Waxa uuna ku yidhi shaqaalihiisii, waa inaad si degdeg ah aad u xidhiin. Gabadhii uu markaasi wiilkiisu guursan lahaana waa uu ku daray oo ahayd canab. Halkii ayuuna ugu dhigay aroos aad iyo aad u qurux badan. Waxa uuna ku yidhi gabadhii, waan ka xumahay dhibkii ku soo maray. Daawada sheekadeenna maanta intan ayay ku eg tahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowga.